kadib markii deeq lacageed lagu soo hagaashiyay shabakada caalamiga Shinila News ayaa maanta waxaa si toos ah u gaarsiiyay anigoo ah Cabdi Maxamed Cabdilaahi qoyskan oo hore u soo bahaysay shabakada caalamiga Shinila News ayaa maanta lacag cadadkeedu dhan yahay $1 oo deeqdaasi waxaa gaarsiiyay anigoo ah wariye Cabdi Maxamed Cabdilaahi munaasabadii deeqdan ayaa waxaa goobjoog ka ah culimada diinka magaalada Xariir iyagoo mahadnaq balaaran u celiyay dadkii iyagu deeqdan soo diray oo hormoodka ka yahay in Umar Nuur Sugaal isla markaasina kaalin libaax la ka qaatay qoyskan yar ee danyarada ah qaarkood waxa hadalladooda ka mid ahaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda Umar Nuur Sugaal oo ka madaxda yahay iyo inta kale ee soo caawisay Sweden dhamaantiinba ihsan wanaagsan baad walaalayaal soo samayseen cadeediina wayna soo gaadhay iyadoo oo $1 ah boqolkiiba boqolna waan idinku mahadnaqaynaa in dadka jilicsan aad sida u soo caawisana waan idinku boorinaynaa wixiina gacanta ayaan maanta ku haynaa waan idin soo ducaynaynaa boqolkiiba boqol baan idin soo ducaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullah deeqdi way soo gaadhay boqolkiiba boqol waan idin doomaynaa maxay ahayd walaalahayo maxay ahayd idinka ilaahay nin gargaar annagana wayna soo gaadhay deeqda loo soo dirteen walaalahay inta maxay ahayd halka joogta si fiican baan iga gudboonaa si kastaba ha ahaatee qoyskan ayaa maanta deeqdani ku soo hagaagtay si weyn ugu baahnayeen isla markaasina ay si weyn ugu dirsadeen iyagoona hadallo duco iyo dardaaran iskugu jirana una jeediyay isla markaasina wajigooda laga dheehanayay farxadaada u sarraysa maadaama ay deeqdani u baahnayeen Cabdi Maxamed Cabdilaahi Shinila News Sayla